fahad yaasiin xaaji daahir shantii sanno u dambaysay waxa uu ahaa ninka loogu hadalhaynta badan yahay siyaasadda Soomaaliya. mucaaridku waxay ku naanaysaan mulkiilaha dawladda ama mustambeedka siyaasadda ka haga daaha gadaashiisa iyagoo ku eedeeya inuu fuliyey falal badan oo tabnaa. muxaafidkuna waxay ugu yeedhaan khaliifka dawladda iyo mishiinka kala haga dalka. haddaba waa kuma fahad yaasiin xaaji daahir? xaggee buu ku dhashay? aqoonta muxuu bartay? sidee buuse ku soo fantay sallaanka siyaasadda? fahad oo magiciisu raaco yaasiin waxaa sida xogihiisa dhalasho xusayaan uu ku dhashay magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. waxaana sida baasaboorkiisa ugu qoran u dhashay sannadkii 1978. yaraantiisii waxa uu ku soo qaatay magaalooyinka Mandheera iyo Muqdisho, isagoo markii dambena tegey dalalka Baakistaan iyo Yemen. aqoon ahaan lama hayo meelo saxa oo uu ka soo baxay, balse waxa la isku raacsan yahay inuu leeyahay aqoon diimeed iyo mid luuqad carbeed oo aad u sarraysa. xilligii ay gobolka Gada ka talinayeen ururkii al-Itixaad al-Islaam, fahad waxa uu ku noolaa sida la sheegay magaalada Beled Xaawo. lama se hayo war sugan oo sheegaya inuu ka qayb qaatay dagaalkii 1996 dhex maray dawladda Itoobiya iyo ururkii al-Itixaad. sannadkii 2000 ee bilowgii qarnigan 21aad ayuu fahad ku soo biiray dhanka saxaafadda, isagoo wax ku qori jiray websaytekii caanka noqday ee Somali Talk, kaas oo uu ku qori jiray maqaallo iyo warbixinno uu kaga warramayey xaalka Soomaaliya ee waagaasi. wuxuuna ahaa nin ka mid ah dadkii ugu qoraallada badnaa, isagoo waraysan jiray madaxdii qabqablayaasha ee Soomaaliya wakhtigaasi ka jiray. xilli lagu sheego bilowgii 2005 ayuu fahad u wareegay warbaahinta dhanka muuqaalka ah. qaybta carabiga ee Aljazeera ayuu wariye uga ahaa Soomaaliya, wuxuuna si weyn u soo shacbaxay sannadkii 2006 markaasi oo midowgii maxaakiimta islaamku ay si weyn ugu fideen koonfurta Soomaaliya, isagoo warbixinno joogtaha ka soo diyaarin jiray dagaaladii dhex maray hoggaamiye kooxeedyadii Muqdisho iyo midowgii maxaakiimta. markii ay Itoobiyaanku soo galeen Soomaaliya sannadkii 2007, fahad waxa uu ahaa wariyaashii halista u badheedhay ee soo tabin jiray wararka magaalada Muqdisho, waxaana uu waraysiga ka qaadi jiray madaxdii ururradii islaamka sida Xasan Turki iyo Xasan Daahir Aweys, isagoo sidoo kale booqasho ku tegey oo warar ka soo diyaariyey magaalooyin ka baxsan Muqdisho sida Nairobi, Hargeysa, Boosaaso, Jabuuti. doorashadii Jabuuti ka dhacday sannadkii 2009 ee lagu soo doortay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, fahad waxa uu ahaa wariye ka mid ah warfidiyeenkii soo tabinayay doorashada, waxaana uu doorashada kadib waraysi la yeeshay madaxweyne Sheekh Shariif. sannadkii 2011 oo ahayd 6 sanno kadib markii uu noqday wariye muuqaal, ayuu fahad ka fadhiistay shaqadii saxaafadda, isagoo markaasi kadib u soo diga rogtay dhanka siyaasadda oo aan lagu aqoon. waxaana uu sannadkii 2012 uu wax ka dhisay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. xasan ayaa fahad u magacaabay wasiirka gaadiidka iyo arrimaha badaha, ha yeeshee fahad ayaa xilkaasi diiday, waxaana sababta lagu sheegay inuu fahad doonayey in loo oggolaado awood dheeraad ah oo uu dawladda ku yeesho, balse Xasan Sheekh ayaa taas ka hor yimid, isagoo oo fahad ka doortay Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo fahad ay ilmaadeer ahaayeen, isla markaana ay Xasan Sheekh wada ahaayeen saaxiibbo iyo macallimiin wada dhigi jiray jaamacadda Simad. intaas wixii ka dambeeyey fahad waxa uu iskaga noqday dalka Qatar, isagoo ku biiray xarunta daraasaadka ee TV-gii uu horey uga tirsanaan jiray Aljazeera. mar labaad ayuu haddana fahad yaasiin tijaabiyey saamayn uu ku yeesho siyaasadda Soomaaliya, wuxuuna la saaxiibay madaxweynaha haatan ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, isagoo ka shaqeeyey sidii Qatar taageero ay u siin lahayd Master Farmaajo. fahad ayaa sannadkii 2016 magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho ka bilaabay ololaha madaxweyne Farmaajo, wuxuuna sannadkii 2017 bilowgiisii ahaa qaabeeyaha guushii uu gaadhay madaxweyne Farmaajo. madaxweyne Farmaajo ayaa fahad yaasiin bishii May sannadkii 2017 u magacaabay agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya, isagoo intaasi kadib noqday jookar ka dhex muuqda siyaasadda Soomaaliya. balse saamayntiisa iyo hadalhayntiisa ayaa sii korodhay markii fahad yaasiin uu noqday taliye ku-xigeenka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA, taas oo markii dambena uu agaasimo buuxa ka noqday. wuxuuna hay'addaasi maamulayay laga soo bilaabo bishii August sannadkii 2018 ilaa bishii Sebtembar sannadkii 2021, markaasi oo xilka laga qaaday. xilka qaadista fahad yaasiin
ayaa keentay buuq badan oo hadheeyey siyaasaddii Soomaaliya isagoo madaxweyne Farmaajo ka hor yimid xilka qaadistaasi. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in xilka qaadista Fahad uu cuskaday maadaama uu Fahad Yaasiin war buuxa ka keeni waayey sarkaaladii la odhan jiray Ikraan Tahliil Faarax oo la waayey bartamihii sannadkii hore iyadoo ahayd xubin sare oo ka tirsan hay'adda uu Fahad Yaasiin agaasimaha ka ahaa ee NISA. madaxweyne Farmaajo oo ka cadhooday xilka qaadista lagu sameeyey saaxiibkii ayaa sheegay in shaqada laga joojiyey ra'iisul wasaare Rooble isagoo Fahadna u magacaabay la taliyihiisa amniga qaranka. Fahad oo 5 sano u dambaysay aan la arki jirin ayaa horraantii toddobaadkan soo daadiyey sawirro uu ku soo galay goobo kala duwan isagoo shalayna ku soo baxay kursigii horey ugu fadhiyi jiray Faarax Sheekh Cabdulqaadir. waxaana lagu wadaa inuu Fahad Yaasiin u tartami doono guddoonka golaha shacabka gaar ahaanna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi oo beeshiisu qondo u leedahay. waxaana dad badani ay sheegayaan in aanu Fahad la mid noqon doonin raggii isaga booskan uga horreeyey. Fahad oo magaciisa labaad Yaasiin yahay isla markaana magaciisa oo saddexan uu yahay Fahad Daahir Axmed, dadka yaqaana waxay ku tilmaamaan in uu yahay nin afkaaban oo aan aqoon ballanka baxa isagoo lagu tilmaamo sidoo kale nin howlkar oo xafiiska fadhiyi kara ku dhowaad 20 saacadood. dadka dhaliila ayaa sidoo kale ku eedeeya inuu yahay nin isticmaalay awood aan loo dooran isla mar ahaantaana aaminsan kala adkaanshaha iyo ismuquuninta. si kastaba ha ahaatee Fahad Yaasiin waxa uu hadda u soo baxay bannaanka isagoo xubin baarlamaan noqday, balse guddida doorashada Soomaaliya ee heer federaal ayaa maanta war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in la hakeeyo natiijada kursigii uu shalay ku soo baxay Fahad Yaasiin. wararka ayaa sheegaya inuu dhowaan Fahad Yaasiin qaban doono kulamo warbaahineed iyo doodo dadweyne kuwaasi oo kaga jawaabayo weydiimo badan oo dadka ka dhex guuxaya.